maanta hadduu isdib isu soo sharaxay sidii maayarka arabsiyood ba yidhi inaanaan qabyaalad lagu dooranayne waxqabadkiisa lagu dooran doono gobolka oo dhan noo qabtay oo dhammaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan u ducaynaa insha Allah bilaa kariiso noqoshadiisa inuu Ilaahay umada u adeejiyo oo uu mar labaad xilka qabto Ilaahay baan u baryaynaa waana u ducaynaynaa waxaanu kaloon u ducaynaa maanta halkan uga ducaynaa maayar maxamed amiin oo qayb laxaad leh ka soo qaatay cusbitaalkan oo maanta inoo keenay ambalaaska dhakhtarka guuraya ah ee facility-giisa u dhan yahay ee wax walba leh halka inoogu soo deeqay isagoo degmadan horena wax uga soo qabtay wax badanna soo qabtay wax badan oo kalena qaban doona waxaan filayaa isagana aad baan ugu ducaynaynaa waxa kaloonu u cadaynaynaa maxamed amiin maanta hadduu isdib isu soo sharaxay sidii maayarka arabsiyood ba yidhi inaanaan qabyaalad lagu dooranayne waxqabadkiisa lagu dooran doono gobolka oo dhan waxaanu u soo booqanay inaanu mahadnaq u samayno wax qabadyadu sameeyay oo ay ka mid tahay librariga ama maktabada akhriska oo arabsiga nooga sameeyay oo bilowgii 2018 ilaa imika 2021 uu hawshii nala wado uu dhaqaalahana geliyay ma sha Allah ay taabo gashay ardaydii wax qabad u noqotay ay wax ku akhristaan waa wax qabadyo la taaban karo oo badan ayuu maayirku noo sameeyay kow maaha markaan idhaahno librariga waan uga mahadnaqaynaa maayirada maayirka Somaliland madaxweynaha gobolka maxamed amiin aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa wax qabadku noo sameeyay ilaaha boqorka waxaan ka rajaynaynaa amiin iyadoo qofka gobolkaas ka soo jeeda iyo qabiilkaas uu yahay iyo beeshaas uu yahay midnaba aan lagu qiimeyn wax qabadkiisa iyo shakhsiyadiisa lagu qiimeeya maxamed amiin wuxuu ku suntan yahay wax qabad qiimeyn iyo qadarin uu bulshadiisu mas'uulka ka yahay ilmaha caawa dhashay iyo odayga duqa si mid uu wada qadariya si mid uu dhageystaa si mid uu fikirka ula wadaaga oo fikirka ka qaata dhammaan baahiyaha eeriyadiisa gobolka eeriyadiisana taakataaku ogyahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maanta ilaahay baa maamuusi ilaahay baa karaamiye qadarasiin laakiin annagu waxaanu ku maamuusaynaa wax qabadku noo sameeyay ballaaran shahaado sharaf محمد أمين تاريخ ذا قريسة ما أنت وحن قدونسيننا شهادة شرف إن شاء الله وحن رجينا أنا إنه الناس هنقضى وحقبت كهال كان وضو هدي الله قدر إن شاء الله بدم الله كريم وندعينا في آخر بها براران لأنها في آخر بها وندعينا halka waxaan uga mahad celinayaa oo salaamayaa maayirka gabiley oo ah maayirada lagu faano labada maayir wax qabtay la taaban karo farintaan dirayaana waxay tahay reer gabileeyo ugu celiya waa u qalma waxaan maanta halkan u nimi inaanu mahayir maxamed amiin cumar cabdi uga mahad celino waxqabadka joogtada ah ee aan kala go'in bil kastaba leh ee uu ka geysto maktabada akhriska ee arabsiyo
run ahaantii maayar amiin wuxuu ka mid yahay dhidibada ay ku taagan tahay maktabadaasi isaga la-aantiina wax badan oo maanta maktabadda u qabsoomay noomay suurto galeen saa awgeed waxaanu uga mahad celinaynaa waxqabadkaa ballaadhan ee uu maayirku uu noo qabtay waxaananu ugu ducaynaynaa maayirka inuu ilaahay noo soo celiyo waayo kama dheragsanin waxqabadkiisa weli waanu u haraadannahay waxaanu jecelnahay inuu noo soo noqdo intii uu qabtay iyo in ka badanba inuu noo qabtana waanu ka rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo aad baan ugu mahad celinaynaa maayirka waxaanu leenahay maayirka waad mahadsan tahay allaha kaajiso ay siiyo allana hanoo kaa soo celiyo waad arki kartaan bulshadu way dareemi kartaa library dhalinyaro wax ku akhrisanayso iyo waayeel oo uu kharashku u baahan yahay waad dareemi kartaa maayir amiin wuxuu ku suntan yahay bil kasta kii hoo iyo hiil lagu garab jooga runtii maanta allah sharafakum horta ilaahay ha sharfo ilaahay maqsadkiisa iyo muraadkiisana midigta allaha ka siiyo allana ha barakeeyo runtii إن شاء الله إلهي بإذن الله كريم وحي إلهي يقبل رينا درجة الأعلى في الدنيا والآخر آخرنا إنه ميزانك حسناتك وقدره أدونك نجود كيس إنه كل يبانو رزق بركة يوح مقصد كيس يمراد كيس بإلهي إنه مدك تكسيه وحنا محضنات هالكن وقولنا جوالك ماير آمين وأنا مهد علينا إنه وحقبت فربنا هو إنه سبيه إلا لو كنا يستدي طبعا كي لا صدق سنة بره حتى عفران تاعي أو استغل هال صفنا أو هدي أنا استغل أنا رقارها بحنين أنا مكتبة أساني سعن لهين إما سفي عم بي وكان قاطي وحنوجد عيننا إلهي من ميزان كحسنات وقدره مر لبعضنا ومشرح تانو حنوجد عيننا إلهي وقوليو wixii uu noo qabtay oo dhanba dhammaan aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa waana nuu ducaynaynaa insha allah abdullaahi kariis oo noqoshadiisa inuu ilaahay ummadda u adeejiyo oo uu mar labaad xilka qabto ilaahay baanu u baryaynaa waana nuugu ducaynaynaa